السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الوالبان هذا ولسان كسر هذا جلالك هلا ميديا وطبعا أتقدر وتان شكرين كريمات جعلك طبعا وحيالها جعلك لحريرة طبعا مقالة إن كاسينك دينني سان وأنا وهالكان نخوصه تلقنا ما نخوصه قبلنا وحين لو ذاقنا شيكو مركاسي ودعضي ويل سوماليات طبعا شكراني مركا داوتي وحادري بس يعطيك جعلك أولي هاي وحيالها اللي قلنا وطبعا آد مركي وقفك جعلك وكل آد تحن بطن طبعا waxaan ku socotaa xarane sheekadani dabcan xarane waxa ay ku nool yahay magaalada Muqdisho ee caasimada waddanka Soomaaliya muddadaas dabcan ku noolaa waxa uu yahay wiil iska dhalinyaro ah da'da 20ka ku jira xarane markaasi waxa uu dhigtaa mid ka mid ah iskuulada magaalada Muqdisho ku yaala balse waxa uu markaasi daran jecel u qaaday gabar la yiraahdo Farxiyo dabcan ma jecla balse xarana wiil iska farfaran markuu la hadlayo ardayda iyadoo wuxuu la hadlay si gaar ah oo aad u qadariya maadaama uu yahay tahay qof uu jecel yahay uu doonayo mustaqbalka inuu nolosha la wadaago in badan dabcan wiilkan wuxuu jeclaa Farxiyo oo maalinka ka dambaysa wuxuu doonayay sida uu u sheegan lahaa jacaylka balse taasi waxay jirta xan mid xaran oo dabcan dhalinyarta markaasi iftiinka yihiin ay ku xantaa ama ay laftigooda isku xantaan in sii socotay halkaasi xalan oo jooga goobtii uu arkay jaaniskan uu yahay mid laba maarmaan ah oo hadduu iska faa'iideysan uusan waxaa dhacday in markaasi ay ugu soo bandhigto jacaylkii balse asaga inta dabcan isku dayay saas dabcan uu sheegay ayaa waxaas la soo kulmay ardaydii bareeka soo noqotay markaas afka waddanka soo qaaday jeclahay dabcan ayadu markaasi afjar ka baday dabcan lugtiisa watay markaasi ayay ku qabatay ku raacday waxaa soo baxay arday dabcan asaga gacan muusa qaadin wuxuu tahay qof uu markaasi uu jecel yahay uu doonayo in mustaqbalka la wadaago sidaasoo ay tahay ma aysan ahayn
saasi ha ahaatee dabcan maalintaasi uu jacaylka uga dhigtay xalane waxay u ahayd maalin murugo badan maadaama uu filayay farxad iyo soo dhoweyn balse lagu bedelay jirdil iyo dabcan jacaylkii uu sheegtay dabcan in si kaleba loo fahmo muddo dheer dabcan uu isku dayayay in uu gabadhani soo xirigeliyo balse ugu dambeyntii booskii uu farxan ama aan raadi xalana uu markaasi uu doonaya inuu buuxiyo ama jacaylkii uu qabo ama nolosha rabo inuu la wadaago waxaa markaasi yimin ama ayadu jacayl ay u qaaday wiil markaasi lagu magacaabo caamir waa wiil iska dhalinyaro ah dabcan markaasi وحيستاه بس طبعا جعل يقاضي طبعا وكابل ويسبوسدين وحول شيء waxaa jirtay muddooyin isqabeen asagoo xiriir muusan yeelan markay noqoto youtube-ku ay tahay heestii muddadaasi ay isqabeen asagoo xiriir muusan yeelan maadaama uu weli uusan kasoo kabsan jacaylka uu qaaday gabadha markaasi farxiya aad arkayso in nin wax jecel gabadh leeyahay markii hore sidaahaydeen markii ay wiilka ay u dhashay dabcan waqti badan ka soo wareegay waxaa dhacday in nolosha isku fahmi waayo oo dabcan halkaasi lagu kala tago oo muddadii badnaa lasoo jeclaa waqtiga badnaa waqtigii ay soo jeclay oo yahay walaali waxba iguma ka harin maantay rabaynan kala tagno wejiga marka maanta laga bilaabo halkaasi ayay ka aragtaa ka darantay xanuunka uu leeyahay jacaylku dabcan sidaas ay tahay way kala tageen balse halkii waxaa ku sugaya xalane oo dabcan ahaa wiilkii shalay markuu jacaylka uu sheegtay la kulmay dhibaatooyinka badan xanuunka badnaa sidaas oo ay tahay way isku soo noqotay gurigeeda ayay timin xalana oo markaasi waqti badan oo dabcan jacaylka la dhacay isku dayayna la xiriirto waxay raadisay lambarkiisa dowladna soo heshay wacday xalane iyo waran u yimin dabcan horan ayuu aqoon markaasi wayna isku lahayeen dabcan soo dhaweeyay muuse salaan shalay markuu jacaylka uu soo gudaganayay isaga ay ku samaysay marka jacaylka uu xanuun badan yahay dabcan labadooda waxay noqdeen laba qof isjecel wixii shalay dhacana ama darhab ay ka boobadhayday xalane dhibaatooyinka markaasi ka soo gaaray qofka marka uu jacaylka uu qabsado ama dareen jacayl uu qof kale uu qaado way dhib badan tahay sida uu ugu sheegan lahaa sida dabcan sheekadan dhexdeeda aad ku soo aragteen daawadayaal sheekooyinkan iyo sheekooyin la mid ah oo dabcan qisooyin kala xanuun badan ayaan halkan ugu soo diyaarino waan kugu soo talagalnay midaan ka doonaya waxay tahay inaad
aad la yaabtay ama ku xanuun gelisay oo aad nafsahantaada ku dhacday nala soo wadaag qaybta commentiga sina sheergaree muuqaalada si saaxiibada kale ay u sii gaaraan channelka dabcan subscribe dambalka Allah intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkeena